kusoo dhawaada daawadayaal warbixin aan ku eegayno taariikh nololeedka marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Yariisow gudoomiyihii gobolka Banaadir oo maanta ku geeriyooday dalka Qatar. Allah u naxariistay marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Yariisow waxa uu ku dhashay degmada Hodan ee gobolka Banaadir 26 Agoosto sanadkii 1965. waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe iyo sare waxa uu kaga baxay Banaadir Secondary School isagoo sidoo kalena ka qalin jabiyay jaamacadda Gahayr kulliyadda Civil Engineer sanadkii 1986. shaqooyinkii uu soo qabtay dawladda hoose ee London intii u dhaxaysay sanadihii 2000 ilaa 2003 waxa uu noqday shir gudoonka kooxdii Somali Concern Group intii u dhaxaysay bishii May 2004 ilaa October 2008. waxa uu noqday madaxa xafiiska ra'iisul wasaaraha dawladdii ku meel gaarka ahayd intii u dhaxaysay October 2008 ilaa February 2009. waxa uu noqday agaasimihii hab maamuuska xafiiska madaxweynaha intii u dhaxaysay February 2009 ilaa August 2009. August 2009 waxa loo magacaabay wasiirka maaliyadda dawladdii ku meel gaarka ahayd isagoo oo xilkaasina hayay ilaa July sanadkii 2010. bishii July sanadkii 2010 waxa loo magacaabay wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha dawladdii ku meel gaarka ahayd isagoo xilkaasi hayay ilaa bishii December sanadkii 2010. 3 December 2010 waxa loo magacaabay la taliye sare ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo afayeenkii dawladdii ku meel gaarka ahayd isagoo xilkaasina hayay ilaa 19 June 2012. 20 June sanadkii 2012 waxa uu noqday agaasimihii Radio Barkulan isagoo xilkaasina hayay ilaa 25 Abriil sanadkii 2013. 26 Abriil sanadkii 2013 waxa loo magacaabay la taliye sare iyo afayeenka xafiiska madaxweynaha Soomaaliya isagoo shaqadaasina hayay ilaa 23 Abriil sanadkii 2014. intii u dhaxaysay 24 Abriil sanadkii 2014 ilaa 21 March sanadkii 2017 waxa uu ahaa la taliye sare oo dawladda Soomaaliya kala taliya warfaafinta iyo isgaarsiinta. 22 Maarso sanadkii 2017 waxa loo magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dawladda Soomaaliya. 22 Janaayo sanadkii 2018 waxa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. waxa uu ifka uga tagay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow 7 caruur ah oo kala ah 2 wiil iyo 5 gabdhood. maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 1 Agoosto sanadka 2019 ayuu ku geeriyooday magaalada Doha ee dalka Qatar. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ilaaha u naxariiso gudoomiye Yariisow ehelkii iyo asxaabtii iyo ummadda Soomaaliyeedna samir iyo iimaan ee baha ka siiyo.